baaxadda abaaraha ee ka jirta Somaliland ayaa maraysa meel aad u xun taasi oo keentay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ka baxaan xoolihii ay quudan jireen. Hay'adda SAAS iyo bahda caafimaadka ee gobolka Buuhoodle ayaa gaadhsiiyey deeqo isugu jira raashin, biyo, dhakhaatiir caafimaad deegaanada hoos yimaada gobolka Buuhoodle. Dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ka soo kala kicitimay gobolada Sanaag, Togdheer, Sool iyo qaybo kale oo ka mid ah deegaanadaasi ayaa hay'adda Somaliland Aid Society ee magaceeda loo soo goobiyo SAAS ayaa waxay halkaasi ka bilowday hawlgal biyo dhaamis ah iyo dhakhaatiir caafimaad oo ay u dirtay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaanadaasi. waa kuwan mas'uuliyiinta hay'adda Somaliland Aid Society ee gobolka Buuhoodle oo ka warbixinaya qaybaha ay gaadhsiiyeen deeqaha ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gobolka Buuhoodle. waxaanu gurmadka abaaraha ugu nimi annagoo isku dhan xafiiska SAAS bahda caafimaadka ee gobolka Buuhoodle tuulooyinka ah Hagogane Meegagle Qoriley Kulmiye iyo Ballows dad dayacan oo halka ugu nimi dibadeed waxaa halka hay'adda SAAS ay ugu qaybisay iyo bahda caafimaadka wada socda nafaqadii biskudiiqi biyihii timirtii dharkii iyo talaalkii waxaan anigoo ah DMO-ga gobolka Buuhoodle qaylan dhalaan u diraya xagga Rabbi Ilaah baa naxariis leh Ilaah naxariistaada gaarka iyo taada goonidaaba Ilaah ugu shub dadka dhamaantayo naxariistaada noo shub Ilaah baa waqti qsiin kara qof bini'aadmi Axmed qsiin karo inta hadaan dhaafo waxaan baaq qaylan dhalaan u diraya dhammaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo guddiga abaaraha ee heer gobol iyo heer qaranba hay'adooyinka masiibooyinka ka hortaga iyo kuwa deeqaha bixiyaba waxa meeshan ka jira waxa weeyaan arin af aan laga sheegi karin naagaha cabirkoodu uurka wuxuu marayaa 15 17 16 ayuu marayaa ilmaha yar yarka marka cabirka gacanta la saaro waxay marayaan 12 biyo ma haystaan cunto ma haystaan allaha awood leh baa badbaadin kara laakiin gurmad baynu u baahan waxaan u keenay biyihii caanigii timirtii dharkii dhaxanta ay ka xidhanayeen wixii aanu heli karin awoodayadahay waanu keenay waxaan ku codsanaynaa wixii danaynaya dadka islaamka ah ee dhibaataysan inay gargaar degdeg ah u soo mariyaan hadii ay halkan keeni kareen ay u soo mariyaan xafiiska iyaga SAAS ee Hargeysa SAAS yaa noogu tagay biyo iyo adigu dawo iyo wixii ay heli karaan waxaan oran karaa waa hay'ad mahadsan إلى بعض محل يعني هو محل SAAS بعد ما كانت